شديدة وعنيه قاب كذا لو دقي اتما ايدن اركيو سيدا في ارحبه عليكم ورحمة الله وبركاته. كلنتي وعن وناكسن مركلي فيديو عصب جنال قاعد نقل سعتان وحباب فاميلا نقوى مسنسو دوادا مالي وناكسن هبي وناكسن صباح وناكسن ظهر وناكسن عصر وناكسن كل شيء وناكسن أصحابتي بس بسو دوادا أصحابتي ورجوك سوكر سو دوادا لما أنتي مسو دوادا لما أنتي الوايد ودجعلهاي إن شاء الله وحنا وضع قصة كور فضلا جنال سبسكرايب نوصل لايك شير كم صحبي اللي قاعدة محسنتها سبسكرايب تكوسان ولا قرن وشير قرن لما أنتي مسيتي دباتي الوايد ودجعلهاي مركز إيميل كستا ودعو قف كستا مسلم ونغا حنوسنين ولا عافمات تام النوصية وحنا وضع قصة هلا ورد إنديا وحاذنا إنديا إن شاء الله هو قصة يرانا وضع ونسوق كوب هدو الله يرحضه قصة وحكا دعده هيدربات هلاو إن شاء الله نوع بلعبة قصة وحكا دعده لقوم مقعبها مانسكو مار وزديد لباتين جرعه نوحو ويليار oo leh in rajo fiican iyo mustaqbal fiican waliba in bilaabay in ganacsi yar oo la sameeyay dhalinyaro iskala bixeen college-ka wuxuu gaaray heer aad u dheer wuxuu guursaday gabar lagu magacaabo Krishna oo 26 jir ah oo ayadana ay sanadkaas u guursanay dhameysay dugsigii sare college-na rabtay inay ku biirto waxa dhacday in asiga iyo gabadhii Krishna labadoodiba maxay tahay dad isku faraxsan oo isjecel oo farxad nolol wada wadaagayo sanadii 2019 guurkooda dhacay bishii June waxa dhacday in bishii June markuu guurkooda dhacay labadoodiba ay ku heshiin xafladoodii dhigtaan xafladii ay dhigteen gabadhii Krishna waxay soo jeeday reer iska yar oo faqiir ah waliba aan hanti far badan lahayn isla markiiba xaflada loo dhigay guur ma sha Allah ay dhigteen markay isguursadeen waxa dhacday in Krishna reerkeedii ay la rabeen ninkaas ay la rabeen nin kale oo waliba family-ga ah soo marka ay ka xumaadeen guurkan gabadhooda ay dalbatay haddana is waxba ka qaban karin maadaama ay tahay qof weyn oo qaangaar oo ayada xumaanta iyo samaanta kala taqaana markay isguursadeen bishii June waxa dhacday in reerkii gabadhii ay yiraahdeen adiga iyo ninkaagu aad marti qaadeen waliba meel sida la sheego oo magaalada deganayeen xoogaa u jirtay darbaad xoogaa u jirtay ku marti qaadeen waxa dhacday in ninkii naagtiba baxeen tageen laakiin boolisku waxay yiraahdeen markii yani wiilka la wadaayay gabadha reerkeeda wax badan ay loogeed sida booliska laakiin gabadha way inkarsantahay in wax loogeed reerkeeda waxa dhacday markii laga wada gurigii oo magaalada ay u jirtay ilaa ay ka baxeen wax badan ilaa ay ka baxeen 120 kilomitir ay ka baxeen magaaladii oo Hyderabad ay ka dhamaadeen laakiin Hyderabad gobolada dhow ay tageen waxa dhacday wiilkii la dilay waliba lagu dilay sida la sheegay baangado lagu dilay wasaasna uu ku dhintay wiilkii isla markiina lagaga tagay meel dariiq ah oo wada geeskeeda lagaga tagay laakiin meedkiisa waxa la helay markii uu dhintay 7 saac kadib dhimashadiisa meedkiisa la helay waliba dad dhalinyaro ah oo meesha marayay arkeen xaaskiisa booliska qabteen oo wareys la leeyahay way inkartay inay wax ka ogeed waliba waxay tireen aniga waxba kama ogeyn reerkeedii 9 qof oo reerkeeda ka tirsanaa la qabtay dhamaantoodna way qirteen tan kale dhibaatada jirto waxay tahay in aabaheed hooyad reerkeedii dhan waxay gacan ka geysteen dilka loo geystay wiilka reer Kumar isla markiiba boolisku waxay bilaabeen in la maxkamadeeyo markii maxkamadeynta la bilaabay laakiin wareysigu socdo waxa cadaad in ay tahay gabadha maskaxdii ka dambeysay wiilkan la dilo waliba ay soo shirqooshay ahayd marka hore wax kaliya uga soo waxay ahayd si reerkeeda sheegeen yani reerkeeda ku andacoonayo waxay ahayd dhaqaale fara badan oo si waliba reerkeeda dhaqaale fara badan ay siisay deegaanka markaas u wadana markuu guursado wuxuu uga gaday guriga uga gaday soo marka wuxuu ahaa qof yani furfuran oo markaas jecel xaaskiisa horumarka asiga ay gaartay mid ka balaaran inay gaarto jecel nolol fara badan oo la rabay laakiin waxa ayada doqon calaf male ayadun baa garan weysida la sheegay ayadii waa la maxkamadeeyay markii la maxkamadeeyay maalintii labaad maxkamadda la isugu soo laabtay wareysi kala la yeeshay markii la wareysto waxyaabo far badan cadeysay jiro waxay tiri aniga maanan jeclaan ba laakiin waa Krishna waxa hadlay waxay tiri aniga maanan jeclaan laakiin kaliya waxaan u jili jiro riwaayad yar oo inaan jeclahay
weliba aan dareen jacayl u qabo iyo wax lamid ah soo marka saasaan rabay inaan hantidiisa kula wareego adeerka iyo aabaha iyo walaalada iyo familigan oo 9 qof ka kooban way ka qayb qaateen dilkiisa anigana buush gareynayo qofka soo shirqolan nik waa aniga laakiin haddana ma rabo inaan xabsi galo because markii hore umaanan qabin jacayl iyo dareen iyo farxad intaba umaanan qabin saas daraadeed marka ma rabi inaan nolol la sii qaybsado isla markiiba maxkamadda waxaa la geeyay cadeymo fara badan oo cadeynayo wiilka hooyadiis waa dareemi kartaa marka hooyo la yiraahdo ilmahaaga yaa dhintay qaracanka ay qaadayso iyo dhibaato soo wajahayso wiilka hooyadiis aad u qaracanta weli markii la korgeeyay meeshii meydkiisa yaalay maalintii maxkamadeynta waxyaabo fara badan oo qaracan hay jiro isla markiiba gabadhii Krishna ahayd oo 26 jirka ahayd iyo familigeeda waxaa lagu xukumay xabsi daa'im inkastoo reerka wiilka dhalay ay leeyihiin waxaan u baahanahay in loo daldalo because wiilkan waa la shirqoolay weliba Krishna reerkeeda oo 9 qofood ay iyadoo 10 qofood wiilkan shirqoolay soo markay waxaan u baahanahay in loo daldalo laakiin haddana maxkamaddu waxay xukuntay in reerkaas ay wada galaan xabsi daa'im waayo 10 qof waxay ka qayb qaateen dilkiisa maskaxda ugu weyn oo dilkiisa aawashan waxay Krishna 9 qofna qof kasta wuxuu ku dhuftay wax kasta qof kasta ku dhuftana wuu qirtay meesha ku dhuftay saas daraadeed markay reerka Krishna iyo ayadiiba oo 10 qofood ah waxay galeen xabsi lacagihii iyo wixii naagti uu siiyay yani ninka markuu aroosay lacagii uu siiyay wixii oo dhan waa looga soo celiyay wixii oo dhan hooyadiisa lagu wareejiyay saasay markay ku calfan weysay wixii saasay markuu wax ku calfan weyso oo wixii oo dhan lagala wareegay oo hooyadiisa loogu celiyay markii qisadaas yaraan jeclaystay inaan hindi idin kaga soo sameeyo waxaa jira dad badan oo yiraahdeen in qisooyin hindi nooga soo sameeyo insha Allah qisooyin badan waxaa jira hindi ka dhacay hadduu Ilaahay raasi ugu dhaqsiyaha badan idin kugu soo sameynaa haddana inta insha Allah qisadaas yaraan kaga soo tudhamaanto ma santihiin dadka channelka fiirsanaa iska baxay subscribe iska reeb like ta share gareeya comment fiican insha Allah commentigina like tina dhiirgelin ay taa dhamaanto ma santihiin hadduu Ilaahay raasi markaas aan jecel dhamaantiinba peace and love like the subscribe bye.